waxaa si toos ah dekada degmada Saylac uga soo degay qaad ka yimid dalka Yemen. Dadka qaadka cuna ee ku nool degmada Saylac ayaa waxa ay sheegeen inay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin qaadkan laga keenay dalka Yemen, isla markaasina uu ka wanaagsan yahay boqolkiiba boqol qaadkii ka iman jiray dhinaca waddankeenu jaarkana Itoobiya, iyagoona sheegay in maanta laga bilaabo ayna cuni doonin qaadka ka yimid dhinaca waddankeenu jaarkana Itoobiya maadaama ay laayeen dadkii ganacsatada ahaa ee ka ganacsan jiray qaadkay ku noolaa Itoobiya. sidaas daraadeedna ay maanta laga bilaabo ay cuni doonaan qaadka laga keenay waddanka Yemen. xildhibaan Cabdikariin oo aadan kibar ayaa noqonaya ganacsadihii ugu horeysay ee ka keenay qaad dalka Yemen, isla markaasna ballan qaaday in wixii maanta laga bilaabo uu ka keeni doono qaadka dalka Yemen. waa kuwan dadka ku dhaqan degmada Saylac oo arrimahaasi ka hadlaya. qaadka Yemen ka soo galay aad baan ugu faraxsanahay una raadigeliyay qaad cusub weeyaan una fiicay qaad kan aad baan ugu faraxsanahay waa sugaynay Yemen buu nooga yimid kiilo weeyaan inta aad arkaysaan mijinta inta laga arkaysaan mijinta inta laga arkaysaan waa 24 kun oo shilin qaadkii Itoobiya boqolkiiba 90 uu ka fiican yahay waxa weeyaan qaadkaas aan cunaynaa awguuri waxaa noo yimid jaadkii ugu horeeyay Yemen nooga yimaada horaba 300 sanadood baan wax ka iibsanay abaal waan ka weynaatii lacagta u soo guriga ka kireystay ee cuntada ka iibsanayay ee jaadka ka iibsanayay ayay gowraceen hablaha ka siyaasawgeed hadda jaadka iyagu wuxuu u wareegay Yemen waan ku faraxsanahay qiimuhuna aad waa qiimo aad loo raali ka waran jaadka Itoobiya ku wanaagsan waa jaad soo maray waa jaad مخصوص وعافمات قبا ولا قصوا شقيي وكاسر برا فلقوا سوري وكونك سقاط كيتوبي أودلان بقول كونك قاعد كانوا يحويان نمبر 1 كي ما طلع على وضع مسمار صح نمبر 1 ما كانوا يحويان كيلو يلو يبيا ينس كيلو يربعيو شعيب ولا لا شعيب ولا شعيبي هو صومالي مش مصر كده سيلة ايش على احسن هذا ويان ونجينا بورمي هرجيسنا والله جينا halkaasaan kaga maarmaynaa qaadkii qotada dadka lagu leeyahay رمضي ummadeena laayay رمضي يا بني Soomaaliland qaadanaga oo soo furayna adeer hadday tiraan qaad ma haystaan wadnaadsantii qaadkan ka soo degay dekada degmada Saylac ayaa noqonaya qaadkii ugu horeeyay ee laga keenay dalka Carabaha ee Yemen kadib markii uu joogsaday qaadkii laga keeni jiray dalkeenu jaarkana ee Itoobiya. isla markiina waxaa qaadkani loo diray caasimadda Somaliland ee Hargeysa. xildhibaan Cabdikariin oo aadan kibar oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac ayaa wuxuu sidoo kalena sheegay inuu geyn doono magaalooyinka kale ee ka mid ah Somaliland. waa Cali Axmed Diiriye, Cali Dhagadrool, wararka Ariel TV, magaalada Saylac.